بسم الله الرحمن الرحيم. Somaliland 10 sano kadib ka quuso. Soomaalida iyo xabashida muddo qarniyo ah ayay dagaalo baan oo lagu hubtay ka soo dhaxeeyeen. Waynuna iska indhatiraynaay cadaawaha koobaad ee ay Soomaaliya leedahay waa xabashi. Dagaaladii waaweyn ee ugu dambeeyayna waxa ka mid ahaa dagaalkii 77kii. Xabashida waxa buuraha saaray baqdin ay Soomaali ka qabaan oo dhufays ay ka dhiganayeen. Cadaawada iyo colaadda ay noo hayaanna ilmuhu marka uu ababo ee afbarto sida aynu quraanka u barno ayay ugu bilaabaan uurkooduna weynoo wada guntan yahay. waxa la yaab leh in qarnigan 12aad uu yahay qarnigii koobaad ee abid la arko Soomaali xabashi ku leh waa walaalahayo iyo dawladda Itoobiya waa garabkayaga iyo gaashaankayaga. daawade Itoobiya waxa ay qaramada midoobay kaga doodaa Soomaalidu xeebaha ay degan yihiin oo dhan anaga ayay naga qaadeen. waana dhulkii la oran jiray ardul xabash ee nabigoodu u duceeyay si ay caalamka ugu qanciyaan waxa ay u baahdeen inay helaan surumo ay ka soo dusaan si ay hadhow u gaadhaan darajo ah luuqluuq marow laasim laamigu yimaada. iyaga ayaa dhul isla doonayay dawladdii Soomaaliyeed waxa ay fahantay damacooda iyo higsigooda kadibna maska madaxa laga dilaayay. waa tii dagaalkii baana ee 77kii Soomaaliya sida niyadda ah u gashay ku qaaday ee ay dhabarka jeediyeen xabashidu. maalintaas laga soo bilaabo Itoobiya waxa ay bilowday nidaam hor leh oo awal hal dekad ay doonayeen ay Soomaaliya oo dhan ku doonayaan inay qabsadaan. ugu horeyn waxa ay ka faa'iideysteen qabiilada Soomaaliyeed qaar sida uu dhigayo dhiganaha Cabdiqaadir Arroome ee sababihii burburka Soomaaliya taas oo sababtay jabkii ciidamadii Soomaaliyeed 77kii. kadib dawladdii Soomaaliyeed ee ka hortaagneyd higsigeeda ayay jabhado ku kicisay saldhiggii jabhadihii Soomaaliduna waxa uu ahaa Itoobiya oo waa maragmadoon. dagaalo badan kadib dawladdii Soomaaliyeedna way riday oo gudaha iyo dibadda holac ayay kaga oogtay. kadib waxay u tuntunsatay sidii ay dawladda Soomaaliyeed waxo aan seersan uga dhigi lahayd reer waqooyigana waxa ay gelinsiisay inay Soomaaliinteedii kala nacaan oo ka go'aan awooddii Soomaaliyeed ee maalin libaxyada Afrika ay ku ahaayeen ay gaadho in ay noqdaan bisadaha Afrika. kadib koonfur ciidamo ayay dhigatay rayidkiina way cadaawadaysay intaas oo maamul goboleedna way u kala qaybisay mid walibana waa iyada walaalkeed. waqooyigii goosteen aqoonsiga ayay kaga fadhiisatay si ay muddo kadib uga dhaadhiciso caalamka inaanay waxba qabsan karayn aqoonsina helayn ee xeebahaas la siiyo iyada. labada meelood ee ay hamuungarayada u qabtaana waa Saylac iyo Berbera oo Saylacna waa magaalada ay taariikhdii Soomaaliyeed ku duugan tahay oo inay qodaan oo kala soo baxaan sooyaalkooda ayay u diidan tahay. Berberina waa dhuuntii Soomaaliyeed oo iyadaba waa u dhuun. daawade miyaadan arag tallaabo kasta oo ay Soomaalidu qaadayso calankii doontaba ha sidatee inay Itoobiya ku lamaan tahay? miyaadan arag madaxweyne kasta oo Soomaaliyeed calanka uu doonaba ha sitay inuu ka dhoofo kana soo dego Itoobiya? matuun ayaa kaaga jiray inay faraha iyo lugaha bay nugula jirto. haddaba higsigaas ay waayaha badan soo taxtaxaysay waxa qodobkeedii koowaad u hirgalay maalintii ay dekadda Berbera waaxda ka heshay ee 19% laga siiyay. Itoobiyana maanta waxa ay ku jirtaa reerin iyo reeran doonayay roob maygu yariyay. daawade mar haddii ay 5 meelood meel ahaan dekedii ugu tunka weyneed Soomaalida haysato inta kalena si aayar ah ayay ugu gacan galaysaa. baliira eega aayaha iyo waxa ahaan doona iyo waxa ay markan xiga Itoobiya Somaliland kala wareegi doonto. reer Somaliland ma laga yaabaa intaad isleedihiin walaalihiina koonfureed radeeba wax badso wax beel bay dhashaayeen inaad dalkaba weydaan si saadaali dekedeeni kale ahayd haddii ay maanta Itoobiya 5 meelood oo meel ahaan hantiday ayaamaha soo fool leh sida ay inta kalena u hantiyayso. maanta ayaynu haysanaa fursad aynu siyaasiyiinteena iimaan la'aantu ifii aakhiraba seejisay ugu caqli celinno. hana ilaawin in ay Itoobiyaankii durba Berbera ku soo qulqulayaan oo soo shaqo tageen lil xaq ayay u leeyihiin oo waa dhulkoodii.